بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحافة شرفت بدن mudanayaasha guddiga ilaalinta dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada ee goobta ama xafiiska fadhiya waxaan maanta jeclaysan inaan la wadaagno bulshada Soomaaliland arin waxa weeye golaha shaqooyinkii aan uga wakiilkayn kamid ah waajib qarana waajib sharciya waajib dastuuriya oo waxa weeye sharci jabin foolxun oo dawladnimada ka baxsan oo waxa weeye ku dhaqanka sharciga ka baxsan oo ka timi mas'uul kamida waaxda fulinta wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta wasiirka maanta guddiga kulan bay lahayd todobadii iyo barkii subaxnimo ilaa saaka guddiga xafiiska fadhiday wasiirkaasi kulanka uu ku guuldareystay inuu imaado mana aha arinkani arin maanta ugub ah waa arin waxa weeye muddo soo jiitamayay waxaan saxaafadda la wadaagi doonaa waraaqaha aad arkaysaan oo golaha ka tegey wasiirka shan ballamood oo waxa weeye goloweynuhu mid ahaa afarna ay ahayd guddiga oo yeedhay wuxuu ka dhaga adeegay inuu guddiga hor imaado waxa weeye sabab uu uga dhaga adeegayba iyo meel uu ka haystay dilad ka haystayba haddii aan halkan idinku soo gudbiyo 23 bishii 12aad 2012 ayaan waraaqda wasiirka u dirnay 26 bishii 12aadna waraaq baan u dirnay 30 bishii koowaadna waraaq baan u dirnay 16 bishii koowaadna goloweynaha u diray oo uu ka codsaday fadhi loo mudeeyay axad 23 bishii koowaad 2012 afartaa waraaqood iyo maanta oo waxa weeye aanu balkaygu u dambeeyay oo ahaa arbacadii oo wasiirku waxa weeye ka cudur daartay message-na golaha la soo guddiga la soo wadaagay fariin qoraal text message mobile ah oo wili aan ku jiraayay dib igu dhiga maanta oo kulankayga iltiida subaxnimo ahaa si aan waajibkii qaran aan u gudanana waxa ceeb ku ah dawladnimada waxa ceeb ku ah ballanka waxa ceeb ku ah mas'uuliyadda waxa ceeb ku ah dastuurkeenu dhiganay inuu mas'uulkaasi waxa weeye ka sax waxa weeye waxa weeye uga maqnaaday inuu ka qayb galo fadhiga waxaanu dareena gajira in wasiirkaasi mas'uuliyadda waa in wax bartay oo garanayay in mas'uuliyadda meel dhex laga baajiyay marka aad iyo aad baan arinka waxa weeye wax xunahay gooluhuna waxaan ballan qaadaynaa inaan goolaha arinkii ku celino wasiirka markii hore goolaha u yeedhay gudoomiyaha goolaha u yeedhay markii uu guddiga u yimi waayay laba jeer hore waxa dhacday inuu wasiirku cabati keenay uu goolihii arinkii laga soo celiyay doonaya guddiga inuu imaado haddana mar labaad waa ka laba jeer oo kala jaray marka wasiirkaasi waa caadayste mas'uuliyad umadeedna saa laguma hayn karayo mas'uuliyad umadeed qof waxa weeye akhlaaqdiisu cayn kaa tahay oo aan ballan umadeed iyo ballan mas'uuliyad midna garanayn inuu ummadda mas'uuliyaddeeda qaado oo ummaddu wax ka sugto waxa weeye waa ceeb weeye marka akhlaaqda wanaagsan dawladnimada wanaagsan waxa weeye intaba way ka baxsanta in mas'uul uu saa u dhaqmo insha Allah waxaan rajaynaynaa golahani wuxuu ugu yeedhay wax bareefada ma hayno aan waxa weeye xubnaha ayagani wadadeemay waxa ay waajib qaran bay haydo shacabku tabiyo oo aanu doonayno dareenkii bulshada ku jiray bulshadiina soo dooratay guud ahaan gobolada dhan dareenadii ku jiray ka qabeen mashaariicda wasaaraddaas maamusho inaanu wax ka ogaano anagoo og
baahida iyo shacabku wuxuu dareemayo su'aaluhu isweydiinayo golahan waxa lagu karkariya waxa weeye shacabku wuxuu isweydiinayo waxa maqaxyaha laga hadlay maqaxyaha lagu wada hadlo iyo waxa guryaha laga wada hadlo iyo waxa weeye meelaha waxbarashada yaala meelaha aqoonta taala bulshada kala duwanee dalku ka kooban yahay waxa maskaxdooda ka guuxaya halkan waxa weeye lagu bislaya marka de hadii waxa weeye mudanayaasha kale aan haduu la ka dhigo faahfaahin doona waxyaabaha hadii aan koob iyo laba ka taabto waraaqdii ugu horeysay wasiirka u dirnay waxa aanu ka doonayno qoraalkan ahayd liiska mashaariicda fulay ee ku jiray SDF1 SDF2 kuwa socda kuwa qorsheysan iyo kuwa qorsheysan ee ku jiray SDF2 sharciga mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland lagu dhisay habraaca lagu maamulo sanduuqa horumarinta Soomaaliland habka loo bixiyo qandaraasyada SDF hadii ay maraan guddiga qandaraasyada qaranka iyo hadii SDF si gaar ah u samayso waxay ahayd common bayntaas ahayd waxyaabaha aanu doonaynay waxyaabo ka farcamaya ayeenoo mashaariicda waaweyn ee maalgelinta guud ee dalka dibadiisa nooga timaado midna weyn oo gaana maalgelinaha dawladdu siiyaan dawladda isku inoo keenaan ee dibadda inooga yimaado ee miisaaniyadda ka bixin ee bulshada inoogu caawiso hadii aynu ogaan weyno qaab transparent ay u baxaan qaab dadku sameeyay u baxaan qaab waxa weeye baahida dalka ku saleysan ay u baxaan waxa weeye wixii la inoo siiyay wax ka khaldayna wixii ujeedadii la inoo siiyay loo maamulo marka waxaanu rajaynaynaa inaanu hay'adaha maamula mashaariicda qaranka waxa weeye lagu maalgeliyo ee mas'uuliyiintii loo dhiibay cadeyn kar waayeen bulshada inaanu cadeyn uga doono hadii kalena ay noo soo baxday in bulshada waxaasi mashaariicaas iyo mashaariicaan waxa weeye mudnayn qaabkii loo bixiyay aan loo maamulin marka aad iyo aad bad maasantiin mudanayaashan uga bixi doona talaabada guddigu qaadaysana goolaha aan maanta la wadaagi doona dhammaan bulshada iyo waxa weeye saxaafadan waxaan u qaybin doonaa documentiski baan u qaybin doonaa waxa halkan kale aanu la wadaagaynaa mas'uuliyiin kale wasaaradaha aanu farinteeda arki doona ee qoraaduna kala gaadheen inay guddiga hor imaadaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay waxay balaakan weyd noqdaan ninkii mas'uul qaran halka waajibkiisa ku timaada ee wixii waajib ku farayay ka soo baxana bulshada horteeda aan uga mahadnaqaynaa kii ku guul daraystay inuu baadana bulshada horteeda aanu sheegaynaa inuu ninkaasi waxa weeye mas'uulkaasi ku gafay sharciyeey